qarax loo adeegsaday gaari laga soo bixiyay waxyaabaha qarxa ayaa ka dhacay barta gaadiidka lagu baaro ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho laga galo waxaana sidoo kale qaraxaasi uu saameeyay hoteelka Afriig la yiraahdo oo isagu ah hotel ay dad badan fariistaan waxa sidoo kale burburay goobo ganacsi oo ka agdhawaa halka qarax uu ka dhacay ciidamada ammaanku markii qarax uu dhacay oo durbadiiba halkan ay soo gaareen waxay xireen dhammaan jidadkii soo galayay goobta qarax uu ka dhacay wariyaasha ayaa kamid ahaa dadkii loo diiday inay helaan muuqaalada qaraxyada si kooban iyo daqiiqado la siiyay wariyaasha inay muuqaalo duubtaan ayay suura gashay in muuqaalada idin muuqanaya la helo waxa sidoo kale isbitaalada wararka laga helay ay sheegayaan in ku dhawaad 32 qofood la dhigay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho dhaawacyo qaba waxa sidoo kale dhaawacmay sida dhintay sida loo xaqiijiyay 4 qofood isbitaalka Daarushifa oo kamid isbitaalada la geeyay dadkii dhaawacyada qabay ee qaraxan ku waxyeeloobay waxa isagana naloo sheegay in dad 10 ka badan la geeyay dhaawacyadooda wararkan wixii ku soo kordha kala socod goob joog Cali Aadan Muumin